وزير الدولة وزارة gaashaandhigga dowladda federaalka mudane maxamed cali xaga iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda mudane cabdullaahi colaad rooble ayaa hogaaminayay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya oo maanta kormeer howleed ku tagay isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho ay ku jiraan bukaano fara badan oo si lacag la'aan loogu daweeyo iyadoo mas'uuliyiintu booqdeen dhammaan qaybaha uu ka kooban yahay isbitaalka iyo bukaanada qaar oo ay xog wareysanayeen si ay u soo qiimeeyaan howlaha uu qabto iyo baahiyaha ka jira isbitaal Martini. xaliimo cabdi caruush oo madax ka ah hay'adda iida oo iyadu gacanta ku haysa isbitaalka Martini ayaa wasiirada warbixin ka siisay xaaladda isbitaalka waxayna sheegtay in isbitaalka loo soo dhameystiray agabkii dhaqaatiirtii u baahnaa. waxaan soo marnay annagoo la socono wafdigan culus ee ka socda wasaaradda gaashaandhigga waxaan soo wada marnay isbitaalka qaybihiisa kala duwan waxaan aragnay shaqo culus oo cajaa'ibna gelisay oo aan aad ugu faraxnay waxaan ugu mahadcelinaynaa ilaahay ka sokow taqaatiirta muxuu ahaay neersisyada shaqaale hoosaadka oo si isku duuban si fiican u maamula isbitaalka. wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya mudane maxamed cali xaga oo kormeerka kadib warbaahinta qaranka la hadlay ayaa tallaabo wanaagsan ku tilmaamay in isbitaalka uu si lacag la'aan bulshada ugu adeego wuxuuna ballan qaaday in wasaaraddu si dhow la soconayso baahiyaha ka jira isbitaal Martini. waxaan maleynayaa wixii ugu badnaa ama wixii ugu qiimaha badnaa dalka Soomaaliyeed loo qabtay ayuu qabtay waan uga mahadcelinaynaa jasaakumullahu khayran waan leenahay especially iido iyo dadka saaxiibadeeda ee ka caawiyay muxuu ahaa كان سورة قليلة إنه إسبيتال كان وشقيه سيدا قروح بدن يقيمها للنظافة له أنا صار الناس لما كان استاندر كي عالم يكون سلسن وما سنتين عد كستوك شقي سنة كم هاد علينا رخاطير تيمام الإسبيتال كان وهم هاد علينا وحويا إسبيتال لسديسو وحفظه لكن من تينس كيسي هينتيسو وحاد ودبدن دولتها أي كو أدقتها وقت كان حادك هنا معمولان أما حيان ومن تينجريان إسبيتالك marka sida quruxda badan ee meeting gareyseen aad u haysaan waa niga mahad celinayna anaguna support wixii aad nooga baahataan walba diyaar baan. isbitaalka Martini oo kamid ah isbitaaladii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa qayb ka ahaa goobihii ku burburay dagaaladii sokeeye dalka ka dhacay waxaana dib loo furay sanadkii 2016 iyadoo dayactir iyo qalabeyn lagu sameeyay. Umar Xasan Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.